السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابك مانت كهذلنا وحلا لها The Art of Giving Fuck أما فن اللامبالاة. ciwaanka markii laga soo tago guud ahaan buugu wuxuu ka mid yahay buugaagta ka hadasha horumarinta nafta, laakiin wuxuu uga fiican yahay buugta kale. Wuxuu ka hadlaa runta iyo waaqaca maanta aan taaganahay, halka madaalkaas badankiisa uu xoog u saaro dhinaca positive-ka. waa taqaanaa waa tahay iyo hadallo dhiirigelin oo fara badan aan wada dhaqaano oo wada maqalno maalin kasta. buugga waxaa qoray Mark Manson, wuxuuna soo baxay 2016. guud ahaan buugga fikradiisa wuxuu ka hadlayaa waa isla soo aragnay, waa u gudagalinaa. wuxuu ka kooban yahay 9 section, 9 chapter, 9 qaybood waxa rabtid leh. qaybta koowaad ciwaankeedu wuxuu yahay laa tuxaawil, haba isku dayin. muxuu ka wadaa? wuxuu ku dhahaa qof walbo naga mida wuxuu dareemaa dareen positive ah sida farxadda, dhiirigelinta iyo wixii la mid ah, iyo dareen negative ah oo aadan jeclaysanaynin sida xanaaqa, murugada iyo wixii la mid ah. waxaa isku daynaa mar walba inaan muujino dareenka positive-ka ah, sida waxaa qabtay saas, waxaa galay kaalin, sii wad. sidoo kale waxaa isku daynaa inaan ka wiixno oo qarino dareen walbo negative ah sida murugada, ooyinta, guul darada. waxaa diidana inaan u muuqano qof daciif ah oo kale. Mark wuxuu ku leeyahay ha isku dayin inaad inkirto negative emotionskaaga. aqbal. marka aqbasho waxaa ka dhalanayo isfahan u dhexeeya adiga iyo naftaada. tusaale ahaan waxaad dareemaysaa cidlo ama inaad keli tahay. haddaa inkirsan tahabo inaad keli aad tahay, cidlo aad tahay ka waran. laakiin haddaa aqbashid negative emotionkaaga, waxaa dhici karta inaad isweydiisid waayo ani keliya ahay, sabab dadka iga kala cararaan, see wax u jiraan. waxaa dhici markaas inaad isku laabatid oo dib u fakirtid oo wixii taxliilisid aad dhici karta. laakiin haddaaba aad inkirsan tahay wax oo xalis maayo ma lahan. ha isku dayin inaad ku noolaato nolosha caalamka maanta uu noo sawiray. qof walba waxaa ku programsan inuu soo bandhigo qaybtiisa bastiga ah, ugu lacagta badan, ugu quruxda badan, ugu shacbiyada badan, ugu maaragtay safarada badan. qof walba wuxuu isku dayaa inuu soo bandhigo qaybtiisa positive-ka ah. markaasi dadka dhan waxay u wada maleeyaan qofka negative emotion hadduu dareemo, hadduu guul daro galo, hadday murugo ku imaato inay wax xun tahay uu inkiraa. isku dayin inaad inkirto negative emotionkaaga, sababtoo ah waa qayb nolosha ka mid ah. isku soo duuduub, jabtarka waxaa ku bararay ha isku dayin inaad ahaato wax kale, ahaw naftaada. jabtarka labaad ciwaankiisu waa farxaddu waa mushkilad. jabtarka Mark wuxuu noogu cadeynaa in farxadda aan ku xirna hadaf gooni ah, sida inaad dhaho jagada haddaan heli lahaa farxi lahaa, ama wiilkii uu dhaho heblaaya haddaan heli lahaa farxi lahaa. haddaa farxaddaada ku xirtid hadaf iska gaaban, farxadba ma helaysid. sababtoo ah markaa hadafka xaqiijisid oo farxdid, haddana waxaa u baahan tahay hadaf kale sa u farxdid. farxaddu saas ma ahan. farxaddu waa nooc ka mid a dareenka gudaheena ku abuuran. markaa rabaa farxi karaa oo farxaddeeda waxba kuma xirna. fikradda labaad ee ka hadlaysa farxadda dhigtaas si fiican u raarici. Mark wuxuuna leeyahay oona xaqiiq ah in problemiska ama mashaakilka aysan dhammaad lahayn. waxaa jirta mushkilad ka fudud mid kale ee mashaakilka dhammaad ma leh. waxaa muhiim ah inaad taas garowsatid. waxaa fiican inaad iska saartid fikradda ah in problem ama la-aantiis ay farxaddaada ku xiran tahay. ogow farxaddu waa wax gacantaada ku jira, marka adiga ku taala ama faraxsanow ama murugsanow. jabtarka saddexaad ma tihid qof unique ah ama qof dadka ka duwan. waxaa jira wax la dhaho wax mutamayiz ama mala awaalka qofka inuu yahay unique ama uu dadka uu ka duwan yahay. midkeen markuu yar yahay waxaana lagu soo barbaarshaa dhiirigelin oo cunuga markuu wax sameeyo kale aabayaasha qaar waxay sameeyaan ama hooyinka cunuga dhiirigeliyaan, waana wax fiican. laakiin mararka qaar waxay noqotaa mala awaal ee qofka ay ku weynaataa. markii iigu horeysay nolosheeda aan buug xariiqo waxaa i farbari jiray aabahay. markuu arkay qaabka aan xarfaha u shaqlaayo wax u qoray wuxuu dhahay Zainab maasha Allah, say wax u qoray iskaal arag.
taas dhiirigelin kaliya ma ii noqon, waxay ii horseeday inaan waxbarashada jeclaado, kadibna ihtimaam gooni siiyo cashiradeeda, kadib dadka ay igu ammaanaan aan sii dadaalo. Ugu dambeyn waxay igu abuurtay dareen ah inaan ahay fariid maskax leh oo asaageed wax badan dheer. Sidoo kale waxaa ila mid ah cunug lagu soo barbaarshay inuu qurux badan yahay ama dhinac gooni lagu soo ammaani jiray. marka mal-awaalkaas wuxuu qofku ku dhalinaa inuusan naftiisa horumarin, wax badan qabanin, asagoo isku haysta inuu awood buuxda u leeyahay dhinacaas. kulligeen waxaan nahay unique, oo waxaa ku gaarnahay caqliga oo Ilaahay nooga soocay noolaha kale. haddaad rabtid inaad wax ku gaar noqotid, waa inaad waqti dheeraad gelisaa, waa inaad dadaal gelisaa dadka aysan gelinin. haddaad saas samaysid waxbaad ku gaartaa. laakiin ma jiro ruux cirka ka soo dhacay oo unique ah bilaa camal. intaas kaliya maaha mashaakilka mal-awaalkaas. sidoo kale qofka isku haysta inuu yahay the best, dadkana aysan kula dhaqmin suu asaga aaminsan yahay, waxaa ku dhacaya niyad jab iyo murugo. waxaa asaga la mid ah qofka isku haysta inuu dadka ka liito ama dadka uu ka hooseeyo, fursad walbo soo marta asagana ma ka faa'iideysan karo. marka wuxuu ku dhahaa mar walba waxaad ahaataa midhal, naftaada u samee qiyaas meel walbaad joogtid. haddaa shaqada joogo waxaa ahay ruux shaqeeya, shaqadaas goonida qabtaa, wax ka badanna ma qabti, wax ka yarna ma qabti. haddaa ahay arday, waxaa ahay arday ka mid ardayda, waxbaan bartaa waana dadaalaa. haddaa ahay saaxiib, waxaan ahay saaxiib dhow ama saaxiib caadi ah. mar walbo naftaada aad tilmaami taqaanid, mar walbo mal-awaalkaas aad ka fogaatid. jabtarka afraad, qiimaha dhibaatada. waxaa aad ii saameysay su-aal Mark uuna weydiiyey. adaa hadda ku weydiina, markaa hadaf degsanaysid ama had rabtid inaad gool gooniya gaartid, ma xisaabisaa inta dhibaato aad diyaar u tahay inaad u adkaysatid hadafkaas dartiis, mise hadafka una isha ku haysaa? ani ahaan maya ku jawaab. caadiyan anaga markaa hawsha u guda galno, xanuunka ugu horeeya aad dareemno aa kasoo cararnaa. abaayoy jiimka waxaa ku dhaca mataqaanaa murqa xanuun, laf jajab. sax waay, waa wada ognahay. waxaa loo dhibtoon looma dheefo, no pain no gain. laakiin mar walba afka ka dhahnaa. fikradoo kooban, tusaale, hadafkayga ma ahan inaan high marks keensado markaa jaamacadda dhameynayo. hadafkayga waa inaan u adkaystaa dadaalka, dhafarka iyo mas-uuliyadda waxbarashada, kadibna aan aqoon iyo high marks isku helo. mar walbo dhibaatada aan focus ka saaro, resultiga si fudud oo kusoo baxaa, ilaan waa u dhididay. laakiin haddaa goolka mar walba isha ku haayo, high marks arbaa stress ay ugu dhacaayo, dhibaatooyinka isoo wajahan uma adkaysan karin. jabtarka shanaad, mar walba doorasha ku jirtaa. wuxuu ku leeyahay mar walba isku day inaad doorato wax qiimo ku fadhiyo. doorashada waxaa soo hoosgalaya mas-uuliyad. wax walboo doorato mas-uuliyadeeda adaa leh. tusaale, hebel wuu gaaban yahay, wuxuu aaminay in dumarka aysan rabin nin gaaban, soo qof walboo la sheekaysto wuxuu u maleeyaa in gaabnidiisu ku nacayo. qiimahaas iyo miisaankaas uu is saaray asagaa doortay, mas-uuliyadeedan asaa iska leh. waxaa u furnaa in naftiisa uu qiimo kale oo ka fiican uu saaro. qiimaha aad doorato aad tahay, waxaadna ogoleen cid kugu khasbi karta malahan. jabtarka lixaad, wax walba waad ku qaldan tahay, anna sidoo kale. wuxuu ku leeyahay aysan jirin wax 100% aad hubto. hadduu shaygan qaldan yahay, wuxuu ku qaldan yahay dhinac ama qiyaas gooni ah oo markaas la saaray. hadduu uu shaygan saxan yahayna, wuxuu ku saxan yahay qiyaas iyo macyaar loo fiiriyo markaas. intaas kaliya maahan, sidoo kale ha rumaysan wax walbo caqligaagu uu kuu sheego. tusaale, ani shaqadan maba la dalacsiiyo sababtoo lama rabo, taas igada dhacsan. marka wax dadaala sameynayo ma lahan, aniga caqabad isku noqdo markaas. haddaa ka shakiyo waxa maskaxdeeda ii sheegayso, rajaan lahaa inaan isbedelo ama aan dadaalo ama isku day kale aan sameeyo. laakiin haddaa rumaystay waa fariisanaa oo waxba ma qabsanayo. soo koob, ha rumaysan 100% waxa maskaxdaada kuu sheegayso.
Jabtarka toddobaad, fashilku ama guuldaradu waa wadada horumarka. Qof moog ma jiro, cidna ma mooga in guuldarada ay tahay wadada guusha, laakiin guuldaro waxay wadataa xanuun. Xanuunkana waa qayb ka mid ah nolosha. Taas muhiim ah in aan ogaano already qof walba uu ogyahay. Waxaa muhiim ah guulay aniga maxaan ku aqaan? Su'aashaas inaad isweydiiso. Aniga guusha waxaa u aqaanaa saas iyo saas iyo saas. Miisaanka iyo shuruuda aan ku xiro ay igu xiran tahay. Okay, guuldaro adigana maxaan ku aqaanaa? Waxaan ku aqaanaa inaan isku dayga iyo dadaalka joojiyo. May guuldaro waxaan ku aqaanaa in dadka hadday i caayaan ama iga heli waayaan. May guuldaro waxaan ku aqaanaa haddaa hantidii intaas sana soo tacbaya hal mar aan khasaaro. May waxaan ku aqaanaa hadba cabirka iyo qiimaha aad u yeesho ay ku saaran yihiin guusha iyo guuldarada. Jabtarka sideedaad, muhiimadda maya inaan dhihi karo. Si aan u gaaro hadaf waa inaan wax u huraa. Waa inaan dhihi karaa Zainab maya baashaalka hadda maahan. Zainab maya wax qabso oo nafteeda xakameyn karo. Sidoo kale dadka kale xuduud inaan iskaga yeelo oo dhihi karo maya sidaa ma i qabanayso, sidaa ma ogolin. Jabtarka sagaalaad ugu dambeeya, intaas kadib waad dhiman. Nimcadan ku dhex noolnahay maanta iyo qafladan ku jirno markaan ku fakarno dhimashada waxaa xasuusanaynaa in cimrigan uu kooban yahay. Maalayacni fara badan aan waqti u heynin. Awalba taas diinteena na fartay, laakiin kaatibka aad iyo aad u tilmaamay. Mar walbo aan badiyo xasuusta geerida waxaan noqonaa qof muhiimadiisa abaara sida ugu fiican u dhaqma aragti dheerna leh. intaas aan kusoo gabagabeynaa samiriga aan kasoo sameeyay buugga Fan Allamubaalaad. Buugga fikradaha iyo tusaalooyinka sheekooyinka iyo waxa ka buuxa wax oo lagaga sheekeyn karo. Waxa aad u tilmaamaya in qof walba asagu uu akhristo. Intaas aan kusoo gabagabeynaa kulanti dambe.